kulanka ay ka talinta iyo wada tashiga sameynta golaha deegaanka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Caabud Waaq ayaa waxa ka soo qayb galay ugaas Axmed Barata Koy mas'uuliin ka tirsan maamulka degmada Caabud Waaq odayaasha dhaqanka ururada hooyooyinka ururada dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ujeedka kulankan uu ahaa bulshada sidii uga wada tashan lahayd sameynta golaha deegaanka Caabud Waaq gudoomiyaha degmada Caabud Waaq Mahad Cumar Cilmi ayaa ugu horeyntii ka hadlay kulanka أولاً أنا وانسود ويننا إسبدلك وانسود ويننا إنا نجاره مش أنشوفنا ملك في عن وانسود ويننا نظام دقاليه سا هرمركي سا وكقاطع دق بحيالك وأن وصل معمول قبلات الدولة دحمنا وصل كحرين وحان أوتنسولينا هرمرك ديان كنا أوتنسولينا عرور تنظم مستقبل كوده haddii deegaanku fiicnaado anagoo dhan baa fiicnaanay madaxa hay'adda Hobel Galmudug Maxamuud Maxamed Istuuraye ayaa sidaan uga hadlay habka loo marhayo sameynta golaha deegaanka waxa uu dhacayaa dhinac kasta waxa uu dhacayaa dhinaca adkeynta dhinaca amniga waxa uu dhacayaa dhinaca dhaqaalaha iyo horumarinta iyo ganacsiga waxa uu dhacayaa dhinaca ma arkaysa qoondada mashaariicda aad ku leedihiin qaramada midoobay iyo deeq bixiyayaasha waxa uu dhacayaa dhinaca waxa la yiraahdo is afgaradka iyo sidii mar walba looga bixi lahaa baahida joogtada iyo colaadda joogtada ay mar walba soo noqonaysa sidii looga gudbi lahaa oo ammaan rasmi ah oo cid lagu og yahay lagala xisaabtamo loo heli lahaa intaas oo dhan gunaanadkeedii iyo salkeedii markii la soo aruuriyay wuxuu noqday oo uu ku salaysmay in la dhisto council qaybihii kala duwanaa ee bulshada ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan in degmadu yeelato golo deegaan waxay la tahay councilkaasu iyo magaalada wax ka qabashadeed waa soo dhaweynaynaa war councilka ana kaliya noo tixgeliya oo noo soo dhaweeya councilka waan soo dhaweynaynaa in la soo dhaweeyaana xaq weeye adduunka ku kala socda sharcigu waa qabaa aqligu waa qabaa aragtidu way qabtaa ilbaxnimadu way qabtaa kulli way qabtaa in councilka la dhisto oo maamul la yeesho oo la kala dambeeyo haddii kale waa dhumaynaa inkaar baan ugu dhicin waxaan soo dhaweynaynaa golaha deegaanka oo degmada loo dhisayo mar walba waxaan u taaganahay degmada horumarkeeda marka golaha deegaanka anoo ku hadlayo codka dhalinyarada oo gudoomiyaha dhalinyarada aha waa soo dhaweynaynaa golihii deegaanka ama 27 ama 25 intuu aan noqdo ayaga fariisanaya ayaga dooranaya golihii ayaga dooranaya gudoomiyaha ayaga dooranaya anta waxaan isugu nimid waa aayaha ka tashiga kosolka hadii naloo dhisana waa ka sii fiican tahay ayaduna dhaqaale naga maqan baa helaynaa waxyaalo badan oo hadda tabaynaba maxaan ku dhahay to aan heli doonaa hadii ilaahay idmo la isku afgarto kolley gabdhaha ururka haweenka degmada Caabud Waaq waa soo dhaweynaya anigoo ku hadlahay afkooda waa inay helaan gabdhuhu qoontadii ay ku lahaayeen dhismaha golaha deegaanka ugu dambeynta ayaa kulanka waxa soo afxiray ugaas Axmed Barata Koy waxaan soo dhaweynayaa maamul sameynta degmada Caabud Waaq waana dantanadii waa horumarkanagii waa waxqabadkanagii waxaan ugu baaqayaa degmada Caabud Waaq maamulkaas horeyba adinka u soo dhaweeyay maanta sharaf weyn buu sitaa sharafta uu sitaa waxa weeye uu idin yimid oo degmadiinni u yimid inaadna gacan kaliya ku qabsanay labada gacmoodba ku qabsataan Cabdirsaale Deela warbaahinta SBC magaalada Caabud Waaq